maanta ay taariikhdu tahay 6 bishii afraad 2026 waxaanu awalan taxsiyaalkan uga diraynaa marxuumkaasi gacanteeda ku baxay waxaanu leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay samiriye iimaan haynaga siiyo ilaahayna ha u naxariisto waxa kale oo aanu ka xunnahay geeridaasi dhacday oo aanay beeshu aar iyo tashi midnaba aanay ku lahayn ee shakhsi ka dhacay oo runtii saameyn ku yeeshay nabadgelyadii ballaadhnayd ee ay beesha ay la qaadatay walaalahooda iyo dawlad deegaanka Soomaalidaba aad iyo aad baan uga xunnahay dhacdadaasi nagu soo noqotay waananu ka murugeysanahay walaalahayana waxaanu leenahay ilaahay dhammaanteen samir iyo iimaan haynaga siiyo ninka ay naga baxayna ma soo noqonayo diyaar waxaanu u nahay inaanu ku daba jirno ninkii gacan ku dhiiglaha ahaa waxa laala wixii ay ku samraysaana inaanu diyaar u nahay maanta arrinkaana aad uga xunnahay intaa kadib waxaa noo suuro galay markii aanu 3 habeen halkan hawl ku ballaadhan ku jirnay inaanu soo qabanno xigtadii iyo waxa weeyaan ehelkiisii ninka dhibaatada geystay waxa kaloo aan noo suurta galay inaanu wufuud dhan walba u kala dirnay oo aanu ku daba joogno ninka raacdadiisii iyo warkiisii waxa kaloo aan noo suurta gashay iyaduna inaanu sameynay guddi 15 iyo salaadiintii oo waxa weeyaan mustambeed ah oo hawshaasi aanu kala tagaynin oo waxa weeyaan hawshaasi aanu xil saarnay kuwaasi oo kala shaqayn doona dawladda iyo shacabkaba ninka raacdadiisii iyo soo qabashadiisii waxaanu insha Allah ilaahay ka baryaynaa inay hawshaasi aanu ku guuleysano walaalahayaga gacanta ay ku dhacdayna waxaanu leenahay walaalayaal wixii aanu ballan qaadnay halkii bay naga yaalaan qadar baa dhacay aan isu samirno aanan isu dul qaadanno wixii aad ku qancaysaana diyaar baanu nahay aanu isugu nimi haddaanu nahay dhaqankii beesha Arab iyo waxgaradkii iyo odayaashiiba ina aanu xoojinno nabadii hore lagu dhawaaqay odayaashii hore iyo salaadiintii hore iyo cuqaashii hore iyo odayaashii hore ay ku dhawaaqeen inaanu xoojin uga dhigno taayadan baaqaygana ayuu ku saabsan yahay marka hore tacsiib aanu diranaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baanu leenahay ilaahay ha u naxariisto marxuumkii inaga dhintay allah u naxariisto alla godka allah u nuuro eheladii iyo dadkii uu ka dhashayna samir iyo iimaan saadiqa allah inaga siiyaan leenahay taasi waa taa tacsida weeyaan tan labaadna waxa weeyaan maadaama aanu isa soo gaarnay haddaanu nahay odayaashii iyo dhaqankii beesha Arab aanu isa soo gaarnay oo baaqa iyaguna kaa hore uu akiidayo sida uu caaqil ka hore sheegay waxa weeyaan guddiyo kala duwan baanu samaynay oo ku daba jooga raadkii dadkii wax geystay dhibta geystay ku daba jooga oonu qaybinay oonu 4 koona u kala dirnay ayaanu maanta halkan ka sheegaynaa waxaanu sheegaynaa oo kale inaanu dadkii xigtada ahaa oo ahaa dadka dhibta geystay in iyagana xarigii lagu soo kordhiyo la soo wada qabtay oo la soo xidhay baanu iyadana sheegaynaa waxaanu sheegaynaa oo kale in nabadgelyada la adkeeyo labada dhinac la adkeeyo labada dhinac nabadgelyada la adkeeyo waayo muddo ka hor bay ahayd nabadii lagu dhawaaqay ee dubayaan ahayd oo dhaweyd marka waxa weeyaan arrintaasina waxa weeyaan arrintan ninkaasi geystay waxa arabaho amba xoog ka hayay amba magaranayay dhib lagu wada socday ma ahayn taasina waxa weeyaan kulli cid walba way ka dheregsan tahay waanaanu ka xunnahay waxaanu leenahay cidda lagu daba joogo waa la soo qabanayaa gacanta lagu soo dhigi doonaa dawladdan u dhiibi doonaa waxaan tacsi rasmiya oo ehelnimo oo wada dhalasho oo tolnimo u diraynaa iga dhimayo kaa dhimayda inaga dhacday waa nin garabkeenna ka wada bannaan ka baxay ilaahay samir iyo iimaan saadiqa ha inaga wada siiyo dhammaanteen geeridiina ninkii dhintayna gacanka xaq daran bay ahayd oo dishay ilaahay godka ha u nuuro oo ha ku ilhaamiyo qowlka suuban waxaan arrinka aan isu soo taagay uun waxa weeye waxaan la qabaa odayaashii hore maalintii hore hadlay iyo
labadii oday iga horreeyey imanka intay ku hadleen ayuun baan la qabaa oon xoojinaya